fadhigii ugu horreeyay noo suura galay madaxweynaha la yeelanay qodobada ugu weynaana wuxuu ahaa bal waxa uu yahay programka aan dejinaynaa 60 bilood 9 bilood inaanu dalka iyo dawladda iyo madaxweynaha dhammaantood isla qaadano inuu yahay kuwa ugu habboon lagu suura gelinayo himilooyinka dhaqaalaha kobcintiisa iyo kordhintiisa waxyaabaha ugu badan aan ka hadlayna waxay programma walba soconayay inaan ka tala bixino Soomaali waxay tiraahdaa war la helaa tala la helaa marka talooyin bixinuuna isaga ka timiyo annagu waxaanu madax ku haynuu baan isu weydaarsanay marka madaxweynahaasi aan aad ugu mahad uga celinay ayuu wuxuu nala qaatay waxyaabaha hadda food saaran oo arrimaha kan deynka Soomaaliya si looga cadfiyahay waxyaabahan hadda aad iyo aad adduunka maalin bashaabad la saarayo Soomaaliya musuqmaasuq ku baahay waxyaabaha noocaas bal sidii wax looga qaban lahaa wada gudidan inay ahmiyad u leedahay waxa muujinaya 60 sano inaga qaadatay gudi noocaana la sameeyo oo la yiraahdo ka tala bixiya dhaqaalaha qaranka ma aha mid gobol ma aha mid dawlad federaal waxa uu qarankan wuxuu ku horumar u tiigsan karaa xagga dhaqaalaha asbaabta aan aad ugu diyaarnahay inaan wixii awoodanaga ku jira ka qabanana waxa weeye marka ugu horeysa fiiriya dalalka hore u maray ee kuntanka sanaad haday Kuuriya tahay haday Malaysia tahay haday tahay maxaan idhaahdaa Singapore dad caynkaas oo tala bixiyaal ayaa wax la weydiiyay waxa naloo xilsaaray inaanu gadaal u fariisano arrimaha masiiriga ah ee dalka haddii dhalinyarta shaqo loo sameeynayo haddii cunto isku filan aan soo saarayno annagoo qoran maahay inaan expertise helno waxaan wax ka qabto hawshan diyaarka u nahayna waa taas weeye